السلام عليكم soo dhawaada asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan Ramadaan Kariim waa cashirkii labaad ee ku hadli doono barnaamijka Premiere Pro casharadaas oo si fira uga baxay channelka waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Xaydar maanta waxaanu sharaxaad guud ka bixin doonaa qaabka uu u shaqeeyo barnaamijka Premiere Pro bilow ilaa dhamaad waxaanu ku soo koobi doonaa muuqaalkan gudihiisa waxyaalo badan marka la socod wanaagsan marka ugu horeysa waxaanu ka bilaabi doonaa qaabka aad u furi lahayd barnaamijka Premiere Pro right click kadibna open ayaa leedahay san ayuu kugu soo kacayaa barnaamijka Premiere Pro waxa ku soo bixi doona daaqada tan yar ee ku soo bixi doonta welcome to Premiere Pro haddii aad hore u isticmaali jirtay barnaamijka Premiere Pro waxa ku soo bixi doona projectyo hore oo aad ka shaqeysay laakiin saadrinaw muhiimadeenu taamaha waxaynu ku dhufan doonaa new project si aynu u guda galno barnaamijka Premiere Pro new project markaas ku dhufato waxa ku soo bixi doonta inta tan waxaad halka ku qori doontaa magaca aad rabto inaad projectiga u bixiso sidoo kale waxaad dooran doontaa meesha aad rabto inaad dhigto projectigaaga kadibna waxaad leedahay select folder kadibna waxaad leedahay okay marka ugu horeysa aad furto barnaamijka Premiere Pro qaabkan ayuu soo baxayaa waxaa jira waxa loo tabs tusaale ahaan learning assembly editing color effect audio graphic iyo library kuwaas oo dhan maxaa loo yaqaanaa tabs ayaa loo yaqaanaa hadda waxaynu joognaa editing tab haddii uu joogo meel kale halkan ay imaan kartaa si uu kugu soo baxo waxa hadeer inoo muuqda inaga marka editing tab wuxuu leeyahay banalo badan banalada waxa kamid ah project banal source monitor program monitor timeline iyo toolski marka banalada waxaan rabnaa inaynu fahanno insha Allah qaabka u shaqeeyaan iyo sida loo adeegsado mid walba si aad u bilowdo muuqaal tirtiridda marka ugu horeysa inaad keento horta muuqaalkii aad tirtiri lahayd iyo wixii aad ka shaqeyn lahayd meesha laga soo gelinayo media halkan way import media to start soo gali mediahaagii si aad u bilowdo qaabka u soo gelinaysaa marka adigoo ku dhufanaya meesha ay ku qoran tahay import media to start double click ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxa uu ku geynayaa meeshii uu kugu jiray mediahaagu kadibna waa helid karaysanaysaa ama waxaad dhahaysaa xabad ayaad u soo gashanaysaa waxaan rabnaa kulligood inaynu soo gashanno kadibna open ayaan leenahay waxaa laynoo soo geliyay mediaheeni muuqaaladii iyo codadkii ayaa la soo geliyay barnaamijka Premiere Pro marka waxaad u baahan tahay inaad daawato wixii aad soo gelisay si aad uga baxdo inta aad rabto waxa jira waxa la source monitor oo ku tusinaya muuqaalka ku jira project banalka hadii aan double click ku dhufano waxaad arkaysaan source monitorkeena waxaynu ka soo baxaya muuqaalka halka ku jira oo balaaran halkan waxay ku sahli doontaa inaad muuqaalkaagii si tartiib ah u daawato oo aad inta aad rabto kala baxdo waxaana loo yaqaanaa source monitorku wuxuu leeyahay waxyaalo badan waxaa kamid ah in and out point adigoo sameynaya meesha aad rabto inuu ka bilowdo muuqaalkaagu ayaad waxa ku sameynaysaa in point kadibna waxaad tegaysaa meesha aad rabto inuu ku dhamaado out point aad sameynaysaa markaad sameysatay in and out pointgaagi waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxa loo yaqaano sequence ee dhowr qaab ayaa loo abuuraa hadeer waxaanu baran doonaa hal qaab loo abuuro waxaad sameyn doontaa drag and drop ayaa waxa ka sameyn doontaa source panelka adigoo geynaya timeline waxaad abuurtay sequence-ga ugu horeeyay ee barnaamijka Premiere Pro haddaan play dhahno waxa timeline ku jira waxaad ka arki kartaa program monitor laakiinse source monitorka kama arkaysid waad aragtaa hadda markaan in aan output sameeyo wuxuu noqonayaa muuqaalkii wax yar laakiinse haddaan sameeyo in aan output-ga ka saaro oo aan qaado muuqaalkii hore uu ka dheeriyahay waad aragtaa waayo markii hore waxaan soo qaatay inta aan u baahnaa laakiin hadeer waxaan soo qaatay muuqaalkii oo dhan sidoo kale waxaad qaadan kartaa muuqaalka bes inta aad rabto inta aad sameyso in aan output ayaa waxa qaadanaysaa muuqaalka bes ama waxaad qaadanaysaa codka bes oo muuqaalkii iyo codkii oo kala go'ayaan adigoo labada calaamadood kala dooranaya sida ayaad waxa ku sameyn kartaa muuqaaladooda dhan inta aad uga baahan tahay ayaad soo qaadanaysaa kadibna waxaad dhigaysaa halka kan timeline-ka si aad isugu qurxiso muuqaalkii oo dhan haddaynu nimaadno timeline-ku waxa uu ku sahlayaa waa miiskii aad ku jarjari lahayd muuqaalada sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano timeline tools oo ah mindiyihii iyo qalabkii adeegsan lahayd oo ku jarjari lahayd muuqaalada haddaynu ka hadalno timeline aan faham yar idinka siiyo timeline-ka inta sare waxa weeye
muuqaaladii. Timeline-ku marka ugu horeysa si default ahaana waa 3 muuqaal iyo 3 cod ayuu qaadaa. Tusaalahaan muuqaalkan marka soo qaado waad aragtaan xagga wax ka sareeya malaha, laakiin si adiga ayaa ku darsan kara. Sidoo kale meel kasta oo kamid ah timeline-ka oo faaruq ah, program monitor-ku wuxuu noqonayaa madow. Play dhahno, playna waxaad ka samayn kartaa halkan ayaad taabanaysaa, ama waxaad samaynaysaa intaad geyso meesha ugu horeysa waxaad taaban doontaa space bar, kadibna play ayuu noqonayaa. Waad aragtaan meel kasta oo maran oo kamid ah timeline-ka wuxuu noqonayaa muuqaalkaaga markaad samayso meel madow. Waxaad ka arki kartaa program monitor. Sidoo kale layers-ku si u kala sareeyaan ayay u soo kala muuqanayaan. Muuqaalka waad aragtaan waxa qarinaya muuqaalka ka sareeya, waayo uu ka soo kormaray. Markuu dhamaado uu go'ayaa. Marka inta inaad fahantaan ayaan rabaa. Si aad u jarjarto muuqaalkaaga oo aad uga saarto waxa aan rabin, waxaad u baahan tahay wax loo yaqaano timeline tools oo aad ku shaqaynayso. Waxaanu ka baran doonaa timeline tools. Halkan ayaad ka arki kartaa timeline tools. Waxaanu ka baran doonaa 3 kamid ah. Waxaanu ugu horeysiin doonaa selection tool. Selection tool markaad ku dhufato ama aad keyboardka V ka taabato, waxa ku sahlanaanaysa inaad clipskaagii meesha aad rabto geyso, highlight ku samayso. Waxa jira wax loo yaqaano browser tool ama sakinti. Sakintan waxay ku sahlaysaa inaad muuqaalkaaga ka saarto inta aad rabto. Tusaalahaan waxaan rabaa inta hore inaan ka saaro. Online-ka ayaan keenayaa meesha aan rabo inaan ka saaro, kadibna click ayaan ku dhufanayaa, kadibna delete ayaan leeyahay intaan highlight do. Browser tool-kuna saas u shaqeeyaa. Waad jarjaraysaa inta aad rabin ayaad ka saaraysaa, kadibna waad soo dhaweynaysaa. Kan saddexaad aynu baran doono waa tape tool-ki. Waa kii qoraalka ah. Meesha aad rabto qoraalkaaga inuu ku soo muuqdo ayaad keenaysaa, kadibna waxaad tegaysaa program monitor, kadibna waxaad ku qoraysaa waxaad u baahantahay. Saa ayaa ugu sameeyay. Marka waad aragtaan kan ayaa samaysmay. Marka 3 tool ayaynu ku eegin doonaa maanta. Insha Allah kuwa kale mid ayaynu u baran doonaa. Markaad rabto inaad cod ku soo darto muuqaalkaaga, marka hore cod ka soo diyaarso, kadibna inta aad rabto ayaad kala soo baxaysaa codka adigoo in aan output sameynaya, kadibna waad soo qaadanaysaa. Wuxuu aadi doonaa dhinaca codadka ee timeline-ka. Waad aragtaan halkan ayuu tagay. Si aad u gaabiso muuqaalkaaga codkiisa, halkan ayaad ka gaabin kartaa. Waxaa jira line dhex mara, halka ayaad ka gaabin kartaa, sidoo kale ka dheerayn kartaa. Waxaad samayn kartaa keyframes. Adoo jooga line-ka ayaa waxaad taabanaysaa control, kadibna keyframes ayaa samaysanaysaa, kadibna fading ayaa samaynaysaa. Codkaaga si tartiib ayuu ku soo galay. Gadaalna waad tegaysaa, waxaad samayn doontaa fade out adigoo keyframes ku soo daraya. Insha Allah si codadka loo habeeyo iyo qaabka ugu quruxda badan waad ku soo saari karto codkaaga, waxaanu ka dhigi doonaa 10 gaar ah. Waxaa jira wax loo yaqaano effects oo ah muuqaalkaaga ayaa waxa ku soo dari doontaa effects. Si aad ugu soo darto effects, waxaad u baahan tahay inaad aado meesha ay ku jiraan effectiyadu. Waxaad tegi doontaa halkan, kadibna effect ayaad dooran doontaa, kadibna effectiga aad rabto ayaad ku soo darsanaysaa adigoo halka ku qoraya magaciisa, ama waad tegi doontaa haddii aad garanayso effectiga magaciisa halka ayaad ku qoraysaa. Tusaalahaan Gaussian bala ayaan ku soo darsanaa. Waa soo jiidaysaa, halkan ayaad dhigaysaa. Hadda waxba iskama bedelin muuqaalkeeni, laakiinse markaan inagu wax ka bedelno ayuu isbedel ku imaanayaa. Si aad muuqaalkaaga wax uga bedesho, waa inaad horta marka hore aad select samaysaa. Soo ku dooran ayaad waxaad tegi doontaa effect control, kadibna hoos ayaad aadi doontaa. Effect control oo meesha laga saxayo position-ka iyo waad aragtaan markasta aan position-ka taabto wuxuu noqonayaa wuu isbedelayaa. Sidoo kale meesha aad ka soo dhaweynayso, sidoo kale rotation-ka meesha aad ka samaynayso weeye, opacity sidoo kale meeshii aad ka sixi lahayd weeye. Marka waxaad tegi doontaa hoos ayaynu aadi doonaa. Halkan waxaad aragtaan effectiga aynu ku soo darnay loo yaqaano Gaussian bala. Balanceka ayaan waxaan ku darinaa inta aan rabno. Waad aragtaan bala ayaa la gelinayaa, repeat pixelna aynu taaban doonaa si madowga dhinacyada uga baxo. Waad aragtaan hadeer qoraal ayaad ku qori kartaa muuqaalkaagii. Sidee baa marka qoraal ugu soo daraysaa? Waxaad taaban doontaa T ama waxaad tegi doontaa toolska loo yaqaano tape tool, kadibna program monitor-ka ayaad dul tegi doontaa. Waxaad ku qori doontaa magaca aad rabto inaad ku qorto.
marka intaas samayso waxaad u baahan tahay inaad wax ka bedesho qoraalkaaga tusaale ahaan meesha uu yaallo kalarkiisa waxyaalahaas oo dhan ayaad rabtaa inaad ka bedesho waxaad tegi doontaa meel la yaqaano essential graphic haddii aadan hayn waxaad tegi doontaa window kadibna essential graphic ayaad dooranaysaa xaggan ayaa lagu soo diray waad aragtaan essential graphic markaad doorato marka hore waa inaad doorataa graphic boxkii uu magacu kugu qornaa markaad doorato dooro qoraalkaagii waad aragtaan halkan ayaa la keenay marka halkan waxaad ka bedeli kartaa meesha uu yaallo qoraalkaagu centerka ayaad dhigi kartaa sidoo kale waxaad ka bedeli kartaa sizekeeda waad aragtaan farta nooceeda farta aad rabto ayaad ku qoranaysaa centerka dhig waad aragtaan kalarka ayaad ka bedeli kartaa sidoo kale aragtaan kalarkiisa wayna bedelnay hadaynu eegno wayna bedelnay kalarkiisa marka sidaas ayaa lagu soo daraa text waxna looga bedelaa waxaad rabtaa inaad saxdo muuqaalka kalarkiisa waxaad u baahan tahay inaad tagto luminatory color meel loo yaqaano si aad luminatory color u tagto waa inaad tagtaa taabka loo yaqaano effects kadibna waxaa kuu soo bixi doonaa waxyaalo badan haddaynu halkan eegno waxay noo soo baxay luminatory color dooro luminatory color kadibna sidii Photoshop caadiga ayuu noqonayaa waxaad dooran doontaa basic correction ayaad dooran doontaa halkan waad aragtaa white balance-gii meesha ugu cad ayaad taabanaysaa kadibna isaga ayaa saxaya exposure-ka ayaad ku dari kartaa contrast-ga ayaad ku dari kartaa sidoo kale saturation-ka ayaad ku dari kartaa marka intaad samayso waxaad samaysay muuqaal dhammaystiran waxaad u baahan tahay bas inaad soo saarto qaabkaad ku soo saari karto marka waxa weeye waxaad tegi doontaa file kadibna waxaad leedahay export kadibna waxaad leedahay media markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi doonta inta tan formaadka ugu horreeya waxaad ka dhigi doontaa h.264 presetkana waxaad ka dhigi doontaa sida aad rabto ayaad u save garaysan doontaa insha Allah cashir gaar ayuu noqon doonaa output name-ka magaca aad ku soo saarayso kadibna save ayaa leedahay waxa ugu dambeeya aad qaban doonto waxa weeye inaad taabato export si uu muuqaalkaagii u samaysmo hambali waxaad samaysay muuqaalkaaga ugu horreeyay aad ku samayso barnaamijka Premiere Pro insha Allah intan waa bilow waxaynu samayn doonaa casharo kale oo aad u xeel dheer oo ka hadli doona mid kasta aynu soo marnay waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan waxay noo balanaa muuqaalka xiga iyo maalin kale